بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينه halkan la asteera la yiraahdaa daayeerku uu ku baqtii jiray markuu talaabay madaxweyne waxa halkan horteena ahayd buuraha la gudboon oo aad u dheer buurtii ilaahay wuxuu soo diray safiirkeena baashe iyo xukuumadda barakeysanada hormoodka ka tahay halkan markay ka talaabayaan munkugu qoladan madaxweyne Allah xididka markay ka talaabayaan way ku baqtii jireen maanta waa ilaahay mahadi madaxweyne carruurtaada abtiyaashood oo halkan ka helay haradii Victoria kale waxaan ku leenahay jiro shoog madaxweyne waxa kale oo madaxweyne ku sheegaynaa xaqiiqada jirta marka laga hadlo dalka waxaad u hogaaminaysaa hanaankii wax qabadka intaan indhahoodu arkeen waxa uu leenahay indhihiinu arkaan wax qabadka fayow ee madaxweynaha jamhuuriyadda Axmed Maxamed Shiiraan iyo xukuumaddiisa iyo wasiiradiisu nagu hogaaminayaan madaxweyne hadal badan kan uma iman insha Allah waa dhawaan baad furi baylatay shaqadii barba harsan maadaama aad indhayntii ku jirto dalkaaga ku mareysay dadkaagu waxay qabaan maadaama ay abaar badan inay haysay abaartii Ilaahay naga soo jabiyay madaxweyne halkan waxa inoogu harsan buurta dhikadeedu waa banaan airport bal mudda tan dhikadeeduna waa banaan waxaynu u baahanoo kaliya dalkeena Soomaaliland waxa abaar aynu ka qaylinay maanta ilaa 60 caga fooq la keeno adigoo taagan haruurku ka soo baxaya balkaasi Soomaaliland ka ugu bariyay ilaa ka ugu galbeedaya biyaha bamka aynu halkaas saarnaa madaxweyne way ku filayeen intaas ay noogu hadhay inay dadku isku filaashay gaaran madaxweyne arintaasi arrin beena maaha cid baa loo diri doonaa waa la soo eegi inta hektar laga beeri karayo halkaana waa la soo eegi inta hektar laga beeri karayo waxaan isleeyahay hadda ayama sii noolaano inaan abaar dambe Soomaaliland markaan balka u beerno maalinta dhaweyto abaartii dalka ka dhacday meeshan waa buuro isma taagan biyuhu anagu banaan ma lihin taas banaan ugu horeysa waxa weeye dadku waxay ka cabanayeen biyo laan bay ka cabanayeen iyo baadlaan halkan munkiga jooga waxay haysteen biyo durduro dooxiidan oo kala waxaanu ka cabanayno qura wixii ay cun lahayn xoolaha iyagu dadka way ka yar dambeeyaan dadka kale waxay ka cabanayeen biyihii madaxweyne waan ku haynaa meesha maanta biyaha hadda laga faa'iideynaa dubu dhac weyn baan lagu dhici doonaa insha Allah bismillahi kariim adigoo la kaadsanaya donoriska tijaarta Soomaaliland oo tusi doonto sida wax loo beerto oo qolada reer galbeedka beeraha haruurka beerata u yeedhno waxaynu u baahanay 40 caga foo kaliya maanta Soomaaliland ka feelaya wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhawaanayaa barasaabka gobolka Muqdisho halkan taagan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية Soomaaliland iyo waftigan ballaaran oo hogaaminayo oo ku soo dhaweynayna aad iyo aad baad u mahadsantahay midana madaxweyne staa u sheegay gudoomiyaha degmadu runtii wax qabadkaaga ballaaran lama soo koobi karo alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeyaan mashaariicda horumarineed ee dalkan ka hirgalay ee aad hadhiyo habeen aad dadaalkeeda aad ku jirto ayuun bay ka mid tahay waxa weeyaan taariikhda qori doonta oo wax muuqda oo aan maaragtay aan ishu ay qabanayso oo indhuhu ay arkayaan caafimaadka qabaa waxa weeyaan mudane madaxweyne sida uu ku sheegay gudoomiyaha degmadu waxa weeyaan waa wax qabad hortii runtii oo waa taa maanta aynu arkayno intaa ka dambaysa ee uu inoo tilmaamay kolle waxaan hubaa ilaahay baa la hubaaye inaad dadaalkeedii ku jirto oo aad sii ballaarin doonto
ilaahay baa mahadle aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa taariikhdaa qori doonta waxaan u mahadnaqayaa ambasadorka baashe cawil oo runtii dadaal ballaadhan ugu jira oo hadh iyo habeen aan ka seexanin horumarka waddanka oo ay taariikhdu qori doonto aad iyo aad baa u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد madaxweyne farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ku soo raacno dhaamkan oo anfacaya deegaankan dadka ku nool oo dhan waxa ugu badan ee la sameeyo waxa ugu khayr badan ajarka biyo ay cabayaan dadweynuhu ilaahay baa abaalkaaga iyo xasanaadka ka siin doona ummadaadii wax wanaagsan baad u qabatay ambaasadorkana waan mahadnaqaynaa qolada dhisaysa iyo qolada deeqda soo bixisana waan mahadnaqaynaa wasiir xuseen ku soo dhaweynayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mahadnaqa sidaasi la sheegay waxa mahadnaqaya oo hadlaya shimbiraha aynu arkayno ee harada dulduulaya waxa mahadnaqaya xayawaankii ka cabay iyo daayeerkii uu sheegayey dhiisigu waxa mahadnaqaya dhulkaa biyihii ku nagaadeen waxa mahadnaqaya waxa nool oo dhan ee dhulka hoostiisa iyo dhulka dushiisaba jooga maantana alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waa haradii ugu horraysay waana tekeliya ee dalkuba leeyahay waa haradii ugu horraysay waana tekeliya ee uu dalkuba leeyahay shalay haddii layshaaraamay shalay haddii laysku buuqay shalay haddii qaar aan inta fog arkaynini ay diidanaayeen in meeshan sidan loo qodo oo ay moodayeen inay madaxweynaha iyo safiirku beer ay leeyihiin samaysanayaan maanta wuu uga tegey warkaasoo iyagaa ka cabbaya alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin markaa kii shalay diiddanaa iyo kii shalay oggolaaba maanta waxay u tahay biyaha kaydka ah sida uu injineerku noo sheegayna wuxuu hubaa inay biyaha halkaa ku jiraa sannadkiisa ku gaadhayaan oo ay ku filaanayaan hankeennu wuu kordhayaa maalinba waxbaynu samaynaynaa biyuhu intan muuqatee fadhiyo keliya maaha 3 meeloodoo ka horreeyey ayaannu arkaynay oo biyihii ay sii fadhiisanayaan oo ay ku hakanayaan oo iyaguna harooyin yaryar oo koobkoobana waxaa inoo sharxayey injineerka waxaan leenahay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waar inta hadhay ee horumar ah ee laydiin keenayo ha diidina meelaha faraha badan leh ee aynu soo aragnay ee bariga leh ee shidaalka laga qodayey ee berbere leh ee aynu dekedda joognay ee aynu haradan joogno ee aynu berri qoolcaday tegi doonno dhammaan waa wax uu madaxweyne axmed siinaanyo idinka tegey adeegayaashiisana waxaan u malaynayaa safiir cawil iyo samsam iyo wasiirada kale jooga iyo nin kasta oo qayb ka qaatayba waa adeegayaasha madaxweynaha waanay mahadsan yihiin dee aniguba waxaan jeclay inaan wasiirada ugu mudnaado oo aan ugu fariidsanaado safiiradana hadduu baasha ugu fariidsanaaday dee wax kale kumuu noqon fariide haradiina waanu aragnay dekadiina waanu aragnay wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بaa mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumarka uu inagu hogaaminayo aynu inakuna ku shaqaynayno waxaan kaloo u mahadnaqayaa safiirka inoo jooga imaaraadka oo runtii intii uu joogay waxyaalo wax ku oolo waxay dawladuhu qabtaan ee ummadaha aynaan inaku itaalka u lahayn inaynu ku qabsano inoo soo dhaweeyay oo runtii sameeyay waxaan kaloo u mahadnaqayaa dawladda imaaraadka carabta oo Sheekh Khalifa uu foundation ay iyagaas wadi Soomaaliya Khalifa Foundation iyo imaaraadka oo dhan u mahadnaqaya sida ay inoogu soo jeedaan ee mashaariic waaweyn dawladda imaaraadku inoola wadaan runtii aad baan u mahadnaqaya wataan wax iskugu ahayn waatay ka geysteen markii aynu qaxnayna ay dadkeena wada siiyeen inay iqaamada siiyaan oo dajiyaan runtii tuunbay markana soo cusboonaatay markuu safiirku tagay waxaan doonaynaa inaynu xoojino waxaan dadka leeyahay wixii la idii soo wada hadii la xirayo hadii hare la xirayo waa la idii ka tagaya ummadaas looga tagaya waxba ha ka hor imanno 4 qof yaanay oranin may waxa la sameeyaa beeraha laga qodanaya beeraheeniba biyo laga joojinay biyihii idin dhaafi lahaa xalay toole yaray soo rugmaday sanad bay halka idinku jirayaan idinka cabaya runtii marka la yiraahdo seeraha la xiraya seeraha waxa loo xiraya ummadda reer guuraaga ee cawska looga soo rarayay gabileeyaantii dhaweyd iyo galbeedka ayaa loo xirayaa hadiidina seerahana waxa ummaddu leedahay ee dawladdu keento ee ama
wadamay nagu soo caawiyaan ha ka hor imanina waxa ka faa'iideysanaya ummadda halka degan dadkuna ha eegaan dantooda iyaanay eegin afar qof oo TV-ga soo fadhiistay runtii waxa weeyaan tan waa tu lagu faani karo waa tu ummadeena wax u taraysa waa wax misaal noqon kara waa waxaynu halkii ciddii ka gacan ka geysatayba aynu aad ugu mahadnaqayno injineerada iyo dadka ka shaqeeyay waxa kaloo ku lamaan dadkeeniyo tababar qaadanaya bari haddii la yidhaahdo kala qoda inta ka shaqaynaysa halkan way ka shaqayn karaan runtii waa wax weyn ilaahay baynu u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay ilaahu way noo bilaabantay aanay khayraadka noo bilaabmay aanay noqon kuwa naga dhamaada waan salaamayaa horta wafdiga dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaaminayo wafdigan ballaaran aad baan idin salaamayaa inagoo waqti kulul iska joogna hadal badan jeedin maayo oo waan jeclaa inaan tafaasiil badan bixiyo laakiin xafladda furitaankan la sugi doonaa laakiin wuxuunan jeclay inaan tilmaamo in mashruucani uu mashruucyadii hore ee waddanka aynu ka fulin jirnay inuu aad iyo aad uga duwan yahay mashruucani horta wuxuu taaban doonaa nolosha dadka reer guuraaga ee deegaankan dega iyo beeralayda oo labadaba uu kulminayaa hadday noqoto xoolihii iyo hadday noqoto beerihiiba mashruucan sida loo hirgeliyay muddada lagu hirgeliyay wuxuu kaga duwan yahay mashaariicdii waddanka marka baaxadiisa la eego 13 bilood ayaa laga joogaa maalintii madaxweynuhu halkan inoogu furay iyo qadar yaroo la socda muddada kooban buu ku dhamaaday iyadoo waliba roob dib noo dhigeen mashruucani waa mashruucii ugu ballaadhnaa marka la yiraahdo dhaqaale ahaan inta ku baxday jamhuuriyadda Soomaaliland intii iminka aynu xornimadeena dib ula soo noqonnay waxa kale oo aan tilmaamayaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyay marka aniga la igu daro dhowr nin oo walaaladeenna Suuriyiinta ee Imaaraadka ka yimid mooyaane dhammaan shaqaalahoo dhamay 160 qof bay kor u dhaafeen dhammaan shaqaaluhu Soomaali bay ahaayeen waxa kaloo iyadana xusad mudan dhammaanba alaabta lagu sameeyay mashruucan lagama keenin dibadda heshiiskaas lagu galay ay la galeen shirkadda Konseer ayaa dhigayay in dhaqaaluhu waddanka galo sidaa darteed waxa loogu danaynayaa dadka deegaanka oo hadday noqoto gaadiidka iyo cagafyada iyo wax kasta halkan laga kireeyay oo dadweynaha deegaankan ayaa ka faa'iideystay qaldada weyn halka taala oo kaliya oo aan dalka laga heli karin ayuunba dibadda laga keenay waxa la wixii kale dhaqaalaha marka taqriiban lacagtii mashruucan loogu tala galay oo wuxuu kaga duwan yahay mashaariicda kale waddanka laga hirgeliyo dhammaanteed halkan 90% halkan ay waddanka gashay oo ama shicib wax laga kareystaa haato ama mid wax laga soo iibsada haato ama shaqaale wax la siiyaa haato waddankay wada gashay waxa soo hadhay daamkani wuxuu qaban doonaa milyan iyo 800 oo kun oo foosto ayuu markuu buuxa haynayaa biyaha kale yimaadee daadku sidaana way iska soconayaan oo halkii doox loogu tala galay ayuu iska marayaa sidaa darteed mashruucani wax environmental disaster oo looga baqayo ama environmentka inuu wax ka bedelo looga baqan maayo waayo dooxi caadigiisii buu iska soconaya biyuun bayna wax kala hadhnay mashruucani wuxuu leeyahay kadimo inta biyahan dibadda yaala waa kayd laakiin kadimo aydan arag oo xaggan u sii jeeda ayaa jira oo biyaha laga qaadan karo oo tuubooyin laga qaadan karo waxaynu u isticmaali karnaa xagga abaaraha oo dadweynaheena u baahan biyaha halkan waa looga qaadi karaa xilli kasta oo loo baahdo biyahani kasakow roobka oo daa meeshu durdur bay ku taalaa marka marna dhinmi maayo haddaan biyo fara badan laga qaadin marna dhinmi maayo dhaamkani marka mashruucani siyaabahaas uga duwan yahay mashaariicda waddanka oo dhan waana mid faa'iidadiisa aynu wada arki doonno waxa kaliya loo baahan yahay sidii aynu uga faa'iideysan lahayn dhulka ku hareeraysan loo beeran lahaa ama calaf xoolaad looga beeran lahaa ama cunto looga beeran lahaa ayuunbaa loo baahan yahay taana waa in tababsheeda wasaaradii ku shaqada lahaa ayaa insha Allah aan filayaa inay arrinta qayb li wax ka qaadan doonaan waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شركة كونسير مركزها دبي طبعا نشكر سيادة الرئيس لقدومه نشكر كل من ساهم في هذا المشروع ونشكر السيد الباشا also لخدماته هو والسيد المهندس وسيم هارون في دبي والإمارات مشكورين جدا لجهودهم لتأمين المشاريع والاستمرار مع مؤسسة خليفة للعطاءات الإنسانية والخيرية وإن شاء الله مشاريع جديدة مستمرة إلى أرض الصومال وإلى شعب صوماليلاند. هذا المشروع سد حنبويني الحمد لله انتهى في الوقت المقرر له
قبل هطول الأمطار. أول امبارح بدأت الأمطار، بدأ الفيضان، والحمد لله خلال ساعة و15 دقيقة تم امتلاء هذا السد الذي يحتوي على سعة بحدود 500 ألف متر مكعب من الماء، بما يعادل 2.5 مليون برميل in Arabic. طبعا السد طوله 150 متر بعمق 11 متر، فوق الأرض 9.5 متر. البحيرة عرضه كمان بحدود 20 متر، في المنتصف من الأطراف 15 متر. طول البحيرة 550 متر. والحمد لله الماء جاهز للحيوانات وللإنسان وللزراعة، للمشاريع الزراعية. وهذه البحيرة ستبقى دائما مليئة طوال السنة، لأنه النهر دوما ما يعطي دوما supply from under the ground. وإن شاء الله الخير فيما اختاره الله، ومبروك نقول لكم، وألف مبروك، وإلى مشاريع جديدة إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فرحد way بيتي إلى المات مشروع دامكن حنبة وينه كاسو فائدة وين ولا قرن كيدتك وآدي آد لوجو فائدة دونه إن شاء الله وانكرتين يو يدلكن يدتكن وآدي آد لوجو فائدان إلهي نبرك يو إلهي بخير قواهن وقلقو آدي آد بوما سنتين.